barakacayaasha ka soo barakacay galbeedka gobolka City ee ku sugan degmooyinka Maayso gaar ahaan Mulli, Abdam, Erar iyo sidoo kale Dirdhabe ilaa Shinile ayaa waxaa saameeyay dhibaatooyin dhinaca nolosha asaasiga ah waxaana shacabkaasi la soo gudboonaaday duruufo adag oo dhinaca nolosha ah haddaba xaaladda ay ku sugan yihiin waxaa khadka si toos ah nooga warbixinaya mudane xasan oo ahaa gudoomiyihii hore ee magaalada Garbaciise imakana ka mid ah dadka barakacay ee ku sugan magaalada Mulli may maqashaa waan ku maqlaa bal xaaladda aad ku sugantihiin nooga warbixi ee dadka ka soo barakacay colaadii iyo dhibtii galbeedka gobolka City ka soo barakacay gaar ahaan kuwii Garbaciise ee gudoomiyaha waxaan jirtay hadda bal xaaladiina nooga warbixiya saad ku sugantihiin xaaladda dadka shacabka ay ku jiraan Garbaciise ee soo barakacay inta meelood ay kala fadhiyaan ay ku kala baasan yihiin waa Mulli, Abdam, Beki, Erar iyo Afcase dadka xaaladda ay taageen wax cuntaa ma hayaan wax raashin oo deegaanka ama gobolka ay siiyeen ay u soo direen wixii hore waxaan hayn ay haystaan ma jirto hal kiisha oo 25 ayaa loo qabiyay Mulli ayaan hore oo imika hayn dadkii waxbana uma tarin qoyskii oo hal kiisho 25 maxay u gaaraysaa u taraysaa oo wax kale la siin ummadii waxay cunto quusato ma haysato shacabkii soo barakacay suuqa ka haday ambadiyaaday waxay cunaan ma hayaan ay cunsadaan imika cunto ahaan hay'adaha imanayana waxa cunto ay keeneen maba jirtaba wax hay'ado cunto keenay maba jirto dar yar walal yar wax yar waxaan hayn marka waxa loo baahan yahay guriga wixii la marinay dadkan bil wixii ku bil ay cunayeen in la siiyo waajiba waxaan ka codsanayaa xukuumadda deegaanka iyo gobolka inay ummadan sideedii loo gaarsiiyo raashimo ku filan oo la siiyo shacabka inta meelood ee degmo kala daadsan degmada Erar, Beki, Abdam iyo Mulli la Afcase qabaleega Afcase wax ay haystaan oo ku filan oo raashina oo war loo hayo ma jiraan si degdeg ah ummadda deegaanka Soomaalidu si degdeg ah ummadda ha u soo gaadho oo wax ku filan ha siiso marka xaaladda ay markaad ku sugantihiin goorma raashin ugu dambeysay sida laga warqabo dhawaan raashin ayaan imika ma daweyn ayaanta imika ma hayno raashinka kiiska 25 kilo la siiyay hay degmada Mulli dadka joogo dadka shacabka Mulliyeed ee halka deggan baa war u haya mahayne cid deegaanka war ma hayo raashinada hadda stoorka yaalla nilima qaybin miya wixii yaal halkiisa u gaaray wixii yaal kiiskiis baa loo siiyay markii dawlad ayad meelaha kale xagee ku sugan yihiin barakacyaashu kale waxay ku sugan degmada Abdam degmada Beki iyo degmada Erar ya Afcase Mulli kamida hay inta kale yaan soo waleegay waxba iyakuna wax raashima bariyahan la siiyay ma jirto yakana marka waxa codsanaysiin in dadkan maaragtaan ay raashin loo keeno dadkan waxay cunayaan inta dhulkoogii hadaan la xoreeyay dhulkoogii inta dhinac u dhacayaan waxay kaga bixi lahaayeen ay ku noolaan lahaayeen in si degdeg ah oo ku filan oo raashinku inta nuuc ka kacayo oo qaysana in la soo gaarsiyo bariis iyo baastadii macaroni iyo sokortii oo ku filan qoyska saba in la soo gaarsiyo si degdeg ah yaan deegaanka iyo gobolka ka codsanayna qurba joogtana maxaad ka codsanaysaa qurba joogtana ummadda waxaad u soo diraysiin meel toos u soo gaarsiisay inaad u soo dirtiin waxay walaalihiin dadkiina barakacay ee la hasuuqay inta haday waxaad u soo diraysiin qof wax toos loo soo gaarsiyo waa inaad u soo dirtiin oo sidoodii loo soo gaarsin karo hay'aduhu soo gaari ma hayno ilaa hadda wax soo gaari maysaan ma hayno annagu marka waxaad leedihiin toos aan noo soo gaadho toos ha u soo gaadho waxaad soo diraysiin ciddii aad aaminsantiin ee toos u keenaysa uu soo dhiiba warba joogay meel kale waxba u soo dirina mudane xasan oo ahaa gudoomiyihii hore Garbaciise imakana ka mid ah dadka barakacayaasha ee ku sugan magaalada Mulli ee degmada Maayso ayaa waxa uu nagu warramay khadka telefoonka isla markaasina waxa uu ka dhawaajiyay duruufo adag oo dhinaca nolosha isla markaasina waxa uu baaq u dirayaa dhammaan cid kastoo muxsiniin ama cid kastoo ay qusayso in dadkaasi la gargaar loo geeyo maadaama ay nolol adag oo duruufo adag ay ku jiraan mudane xasan aad baan kaaga mahad celinayaa waraysigaad siisay insha Allah aad baan ugu salaamayna xasanow aad baad u mahadsantahay